بسم الله الرحمن الرحيم. maanta afartii iyo 35 daqiiqo waxaa ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho fal dambiyeed oo maxaabiista halkaas ku jirtay qaarkood ay ku kaceen ay la wareegeen hub ee dagaal ku qaadeen ciidamadii halka joogay waxaa u suurta gashay ciidamada dawladda in nimankaas oo fal dambiyeedka ku kacay ay la dagaalamaan oo ay gacanta ku dhigaan falkaas waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa lagu guuleystay markii ugu dambeysay in la soo afjaro haddana waxaa socda baaritaankaas oo la xiriira falkaas habkii ku dhacay iyo sidii u dhacay waxaana rajaynaynaa in la soo gabagabayn doono baaritaankaas waxaa kale rajaynaynaa cid alla ciddii arrimahaas fududeysay in hubkaas gacanta ay u galaan nimanka oo rabshadaas halkaas ka kiciyay waxaa lagu qaadi doonaa sharciga waxaana la horgeyni doonaa sharciga waxaan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan ilaalin doono xabsiyada aan ku soo rogi doono habraaciya oo lagu lamaana qaadayo maxaabiista amnigooda iyo ilaalinta maxaabiista intii iska hor imaadka lagu jiray waxaa ka dhashay meeshaas in khasaare labada dhinac ay soo gaartay ciidamadii dagaalamaysay iyo kooxihii abaabulanayay oo halkaa ku dagaalamayay waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool qaarna ay dhaawacan yihiin haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habkay hubka u wareegeen waxaan insha Allah isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan aan gadaalna idinka soo sheegi doono intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatay bashirkan waana salaamantii